دفقوا سودوا سودوا جعل سودوا 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 دفقوا سودوا هيك اللحن هيك السكين هيك التاني سودوا اسماعيل مامي سودوا 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 دفقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدة Soomaaliyeed meel kasta joogtiin waa idin salaamay waa walaashiin Queen-hana oo idin leh galab wanaagsan waxaan idin leeyahay insha Allah sida aniga caafimaad u qabo in adinkan caafimaad u qabtiin rajeynaa inta jiran Allah caafiyo inta muraadkeeda Allah u sahlo aan idin leeyahay maxay ahaydee galabta waxaan rabaa in idin la wadaago wax yar oo ku salam maxay ahaydee dadka horta waxaan la yaabanahay Soomaalida waxaan la yaabanahay qaarkood xogaa sanboor ay ku xasan raaliga ahada waxaan la yaabanahay dadka Soomaalida qaarkeed caayda ma iskuul ay uga soo baxeen mase jaamacad ay ka soo akhristeen mase waxa waaye family oo ma dhihi karnaa yani am Soomaaligaas ma aqaan wax lagu waxaan ka wadaa sidii culture amal yani abtirs may ka keenan ma laha يعني dadkooda may ka keenan amal aabahood mise awoohood mise hooyadood may ka keenan umaleena bal ninkan ilaa hadda la yaabanahay waxaa la dhahaa magaciisa waxa umaleena yaxbul in la dhahay yaxbulow ani waa kaa yaabee waxaana caay walaalo yaa ku soo baray والعايده صبر انت صاعي صبر على يابر بسم الله الرحمن الرحيم بايغا فيرسدا نكاسو نكانو عايناyo waxa la caayna waxa umaleena inuu Ayub Karlo maalin kasta qof oo caayna hebel ku dhagan yahay hebel ku dhagan ana waxaasna marka ninkan caaydan jaamacad ma uga soo baxay mise intuu soo akhristaas waa la yaabo kaliya iska qoslo marka arko bis fanaanada xunta caday kuwa suumanka wareejiya oo qabtaa wajiga aamodid dameer guluus laqay see waxa ka yeen qofkan madaxa aamodid waxa armoos ku tagay suu taagan yahay day qof damiin loo heestaa qabtaa maxaa ka qaldan qofkan shimbiri Tanzania weeg qofkan see wax ka yihiin dhagtaday ku istaarka nafaqada ku sooran baa qabtaa maxaa ka qaldan qofkan aamodid ku xabsada xaarka guraha see wax ka yihiin qofka shaarbaha day shaarbihi awlaha buwataa maxaa ka qaldan qofkan yo asoo yar buu ku laqay ilaahay dambi dhaaf ka dhigo معجزة والله بلا معجزة وحنا كلامنا يحبل هدا أركنينتي وقفوا كل جيا دم داف الله كأجد يقول كي أرض عينك وعين دم داف هذه مركا دم داف ودي يصدقين كانوا عيني سيد أذيك دم داف محكا نيجي نمركوا أيه ما أنا مالك استقف عيسى بتاع سوشيال ميديا ولقوا له يعني أنا ملايا بل هي إنه حنفيرنا إن هذا مركان نيل يرهدو هرتا وسلامة يا صاحبك سوشيال ميديا هواي صاحبك يمدهايو صاحب سوشيال ميديا ولا الكي هواي walaalkeena waa ana ka dhan ninka liiraada shiino culow ma laha shiino culow sheekadan habeenkii farmaajo sa u sugays marka farmaajo la dooro waa ma ku dhufatay ani waa ka shaqeeyay walaalo tan fiyobi way ka dhaaftay tan wali oo agtaay orodka noocaan ee fashion-ka dhulkiisa wuxuu dadka qaar ku dhuftay mogtay farmaajo dad qaar oo waashta dadka qaar geedo wuxuu dadka qaar isku qarxiyeen had shiino culow habeenkaas waxa maleynaa xogo waa lagu yar dhacaamayna sababtoo bal qaabku shiino culay oo dhaqmaayo lugaha dheer suuqa deeg ku gayaan iyo nasiib leeyihiin kuwa inay ka jabin ani ila roonaleed wala inuu farmaajo ku gobin kuwa hadda ka joogan anoo ku sheegado inta ku haysid bal orodkaaga ilaa hadda orodkaaga marka si fiiro iska qosla kaliya maxaa ka wada sheenadaas action kaas maxaa ka wada intuu u socdaa ku socdaa ku dhila baan bal iga dabka hal saaro dabka isu waxir firin biga keen fakata xade ka baxa isi kubada isi garoonka ibe bulgariya geel asxaabtigi abay Jam Street abay shalama ayaan dulgar abay kakuma abay karam busle abay gaarisa abay bula bunda abay Mustafa abay anan la abay najax abay abay tuwende baa adigu Soomaaliyay dad nimir qabo dad social media ku waashay dad inta ka dhacay dad saan ay ku haysiin war dad waxaaba jiraba adduunyada inay ka dambeeyaan moodo oo iska maqan ba qadkeeba ka maqan yihiin badalka sidooda qadka ka maqan yihiin bal ma ila arag ninka liiraahdo Soomaaliya bal ninkan ma kaskasi misdaadaan ay ka tahay ma sidaas ka daacada madaxweynaha Soomaaliga yaa dhaha madaxweynaha Soomaaliga cid kasto ay la yaabto madaxweynaha Soomaaliga keewa ani xataa ilaa hadda waa yaabana madaxweynaha Soomaaliga ma aqaan madaxweynaha Kenya kooda ma ogi madaxweynaha oo Tanzania taag Soomaaliga wala mugtay موكودا والله وفهم وايبو بل كان إلى الدعوة بل وسؤال اللي بديره سوق جواب مركا فيرتد سو ما ممنوع أن الرقطة قبل إنها ممنوع وضدك نب مسكح كتبتي أوف نقدان قف سوق فكرة ممنوع أن نقوله يا موجي ما حكى قدام قف سؤال اللي بديره بل وحي كجواب نمبرك كوات نمبرك لبات نمبرك سدحات نمبرك أفرتاس نمبر أيام ميسكي نو سارن بل نمبر قبسو
waxaan haysaa B29 ya B29 nambarka aad qabsanayso nambarka koowaad ilaa nambarka afraad B961 nambarka koowaad waa tahay nambarka koowaad wuxuu leeyahay sheeg nabigii laga soo saaray waddan afrikaan ah magaciisa waa madaxweynaha Soomaaliga waa mahadsan tahay ma aadan garan soo dhowaan ku leeyahay qof kale fursad siinay waxaa la dhahayaa number one ilaa afar mid qabsaa la dhahay B29 uu taagan yahay xaafad buu tilmaamayaa wax baa ka qaldan yaaba garanayo saaxiibka wax uu sheegayo lamaba garanayo wuxuu iska taagan yahay B28 uu iska taagan yahay haddana walaa dadka noocaan oo kale oo iskaga jiro magaalada oo xataa gobolka hor dhacay waaga siduu xilligu bari aan garanayn adinkana nafar raadinoo siin goor hadda ninkaas maxaa ku dhacay kara walaalayaalo nin la yiraahdo dhifiq ay soo haray dhifiqo horta dhifiqo caana noqoto koori sheeko oo yaroo hadda kordhi jirtay xabad shukulaataha ay arooskeeda naagta canka ii gildamiya ma aqaan xabad shukulaataha canka ii gilday aroos baa meeshaas ka dhacay hataa Facebook lama soo dhigine adoo gacanta iska siinaa dhaha hataa Facebookna lama soo dhigine naagta xunta ahayd naayaa maaragta adoo xanta freshka ku hay aa ku soo gashay social media laakiin hadda waxaa moodaa inaa warin qatar ah noqotay hadda adiga fartuun balbalaarka lagu helo fartuun balbalaarka caawa heer oo dhifiq ka xishoodo ma gaartay subxaanallah azza wa jalla heerkaas maruna in dhaad dumarka heerkaas ay marooyaan naagtina balbalaarka inay caawa dhifiq ka xishoo siisay sheekada haddaan badin waa sii dhiga ma jecla dhifiqow waxay anagu cawradaada geli kari mayna gabadh baatay walaashaya social media cawradaada kama sheegi karna waxaa kaa jeexan lagu waashaa umlaynaani subxaanallah azza wa jalla too kaloo meeshaanaaba ka dartayba abownaagii way tageen nimankii waxay ka xishoonayaan ee naag ka xishoonayni sanadkan ninkii wuxuu jira naag ma ka xishoonayso naagiyaaba maxaan ku dhahaa calamo watabo calamo ay wataan naagii hadda yareeba waxay bismillaahi raxmaani saaxiiba gacana ku taag lugna kugu daraani koodhe magacaas ma iska daysidoo magacaas beebo ahaa jiray marka la yareeraa xataa ma la sheegi jirin magacaas bismillaahi raxmaan adeerta taasoo adduunka oo halaawayaabay saaxiiba magacaas maba ka sheexaysid miya subxaanallah casa wajal ar social media maxaa maryaa lagugu dhigtay ar maryaa in la dhigta Soomaali ka soo dhow maryaa wayba dhigteen markaan Soomaali way u dhamaatay wallahi billahi taala ever way Soomaali way u dhamaatay allah clipkan kala ila daawo dhifiqo naagta uga soo tagtay maxaayad xaaskaaga uga soo tagtay laas caarima dhahay uga soo tagtay markaa soo tahriibto jarmal ka imaade Soomaalida ay ka daba keeneen adeeg ku taala naageera guursatay Soomaalida dhifiqadaada laga daba keenaa lagu dhigay adii social media waxa ka dhacayo yaa bura horta naagta dhifiq way u egtahay exactly way u egtahay laakiin waxa la yaabanahay dhifiqo dadka Soomaalida inay naagta dhibta ku soo dhageen social media kaaga daba keeneen ayadoo nool dhifiqo bahaleesay kugu dhufanaysaa waa min isku egtiin laakiin inaga isku eego isku jiraan maybe in iska jiraan oo isku jaceelka isku ekeysiyo comment ka soo dhaw jaceelka isku ekeysiyo labada qof hadii isjacayada muddo isku egaada marka hadda wuxuu taagan tahay dhifiqo soo dhaw mid kale soo bad wuxuu taagan yahay dhifiqad kale ku soo baxday dhifiqo xaalkaaga uu adag yahay weerar culus kugu soo socda haddana waxaa maqlay in dhifiqada siyaarad Jarmalka u soo saarantaa mugo meesha gali lahayd adaa yaqaana ku dhaay meesha Jarmalka gali lahayd naagaha ka soo tagaysiin dhifiqyaasha uga soo tagaysiin salaas caano markaas ay inta Jarmalka la tagaan ay la guduna markaas waxa la xabada yartaa qaba war dhifiqo wal ugu fahmaan ku dhaashay sheekadii naaga laga daba keenay mugo adeeg ku taala habartan bal si fiican u daawada naagta sida dhifiq ugu egtahay mid kale dhifiq xaaskiisa hore inuu saa u galo oo laas caano uga soo tago oo haddana oo meesha isku guursado naag oo Soomaali inay soo qabtaan ay haddana ugu soo daataan dirashadaha ay dhahan dhifiqadii laga daba keenay ayada cajiinka iyo burka gada jirto way kankeetii duqda gaaska wareejin jirto way dhifiqo godkaaga biyo kugu soo galay anu waa ku sheegay dhiiqaaga hor ugu jirta haddaad qofs iska aamusin at least dollar inaad iska aamus qofta saxaadada saaxiib social media ay ugu ceebeen waa isku egnaa isna wadigelina ku anu waa ku sheegay